waxaan markale cadaynayaa in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay dal xor ah mid ah dhulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu oo isagaba eedeysana caalamka ka ah ujeedada aqoonsi ku sheegaas ma aha danta dadkeena ku nool deegaanadaas ee waa danta Israa'iil oo raadinaysa dhul ay isku ballaariso oo ay si sharci darro ah ugu soo rarto shacabka reer Falastiin ee dhulkooda ay boobtay kana dhisto saldhigyo military oo qalqal geliya amniga gobolka geeska Afrika gacanka cadmeed badda cas iyo guud ahaan bariga dhexe walaalayaal arrinkan wuxuu raad aan fiicnayn ku yeelan doonaa dhaqaalaha horumarka iyo deganaanshiyaha siyaasadeed ee dalkeena haddii si xigmadi ku jirto aanan u maaraynin sidoo kale shacabka goboladaas ku nool waxaan u sheegayaa waxaa la doonayaa in deegaanadiina laga dhigo saldhigyo looga duulo dalal kale lagana huriyo colaado iyo dagaallo aydan idinku qayb ka ahayn danna aanay idinkugu jirin walaal bal fakar Israa'iil daris maahin dana dhaqaale nagama dhaxeeyaan dhaqan nagama dhaxeeyo diin iyo hab nololeed nagama dhaxeeyo weligeena nama dhaxmarin waa maxay sababta ay ula soo booday ixtiraaf beenaadka maanta ay dadka ku dheer la xawsanayso xaggee jirta 34 sano ee la soo dhaafay waxaan fariintayda mar kale u dirayaa madaxda Israa'iil waan leeyahay Soomaaliya ma ahan dal la qabsan karo la qaybin karo ama la gadan karo kuma ladeysaan oo kuma heleysaan waxa aad ku taamaysaan tani waxay sii kordhinaysaa go'doonka aad awalba dunida kaga jirteen